ابن آدم كولا ليا وحصو مريدون لبا مالموت iyo laba habeen oo la yaab badan dhibkooduna uu badan yahay labada maalmood iyo labada habeen oo kala khalaa'iqdu may maqal wuxuu leeyahay xasan albasri raximahullah yawmaani wa laylataani lam tasmaci alkhalaa'iqu bimithlihinna qatu laba maalmood iyo laba habeen iyagoo kale khalqigu may maqal buu yidhi habeenka koowaad waa laylatan tabitu maca ahli lqubuur lam tabit laylatan qablaha waa habeenka u horeeya ee qofku xabaasha uu hoyan doono ee uu dhex geli doono dadkaasi ahlulqubuurka ah waa habeen dhibkiisu uu badan yahay oo in laga baqda ay tahay loo diyaar garoobo oo lagu xisaabtamo habeenka labaadna waa laylatan sabixatuhaa yawma alqiyaama waa habeenka subaxnimadiisu ay tahay maalinta qiyaame isaguna waa habeen aan isagoo kale la maqal labada maalmood ee iyagoo kale aan la maqal waa yawma yaatiika albashiiru min allah ima ila aljannati wa ima ila annaar waa maalinta uu ku iman doono ka warka rabbi tabaaraka wa tacaala ka sidaa isagoo janno kuugu bushaaraynaya amaba naar kuugu bushaaraynaya waa maalinta ay kala caddaan doonto addoonku inuu ka mid yahay kuwa ilaahay khayr iyo wanaag iyo naciimuu la doonay iyo kuwa ilaahay khasaare iyo halaaguu la doonay maalinta labaad waa yawmun tucطaa kitaabuk ima biyamiinika wa ima bishimaalik waa maalinta lagu dhiibi doono waraaqihii iyo kitaabkii camalkii adduunyada aad ku samaysay uu kuugu qoraa kaasi oo aanad garanahayn ma midigtaa lagaaga dhiibi doonaa mise bidixda oo haddii midigta lagaaga dhiibo aad ku farxi doonto calaamadna ay u noqon doonto inuu ilaahay ku naxariistay haddii bidixda lagaaga dhiibana aad ka murugoon doontid ood ka calaacali doontid oo aad odhan doontid maa aghnaa cannii maaliya halaka cannii sultaaniya xoolihii maxay iga tareen xukunkiisa maxaa u iga taray waa calaacalaan qofka waxba u qabanahayn labadaasi habeen iyo labadaa maalmoodba waa kuwa ibni aadamka sugaaya habeenkan aynu ka hadlayno ah habeenka u horeeyo qofku qabriga u hoyanayo waa mid ay tahay in loo diyaar garoobo